wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Oran Cadde ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay ka soo laabteen safar shaqo oo ay ku joogeen dalka Itoobiya. wafdigaasi oo saaka ka soo gudbay magaalada Wajaale xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya iyadoo ay soo galbiyeen wasiirro ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka magaalada Wajaale iyo maayirka caasimadda gobolka Gabiley oo ay weheliyaan dadweyne fara badan oo loo sii diyaariyay soo dhaweynta wafdigaasi. waxaan jeclahay mahad badan uga soo jeediyo hoggaanka madaxda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo halka ay nagala socdaan dhowr wasiirkii madaxtooyada wasiirkii jooga iyo madax kale runtii waxaan dadka maqnaa Itoobiya iyo wakiilka intaba runtii safarkan waa safar taariikhi ah oo runtii dib u qorasho ah oo ah sidii labada dal iyo labada ummadood iyo labada dawlad wax wada qabsan lahaayeen mustaqbalka dhow iyo ka fogba sidii loogu walaaloobi lahaa sidii cadawga labada dal ay gees uga soo wada jeesan lahaayeen dhinac walba ha ahaato. waxaan maanta joognaa runtii goobtii ugu dambeysay ee ku soo gabagabaynay maxaan ku dhahaa ku soo gabagabaynay insha Allah Soomaaliya ama hawlaha shaqada ay ku joogeen wafdiga ballaaran oo hogaaminaya wasiirka gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Cadde socdaalkaas maxaan ku dhahaa ku soo qabsoomay shaqooyin fara badan oo muhiim ah oo dan u ah labada dal maxaan ku dhahaa Soomaaliland deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu soo dhameystiray heshiis ballaaran oo lagu soo maxaan ku dhahaa saxiixay deegaanka gudihiisa heshiiskaasoo meelo fara badan ka tarjumayay horena runtii loo soo sharaxay goobtan dhinaca qarka dhinaca Itoobiya ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliland Cali Maxamed Oran Cadde Mudane Cali Maxamed Oran Cadde iyo saraakiil wasiirro ka tirsan dawlad deegaanka madax kale oo dawlad deegaanka ka tirsan generaalada ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan iyo barasaabo ilaa 8 oo walaaladeen waa dalkeeni dhinaca xarigaasi inama kala qaybin karo qalbigeena isku mid ah laakiin waxa kaliya ku kala duwanahay waa xariga iyo dawladnimada laakiin qulubteeni iyo dhalashadeenu waa isku mid waxaanu ka soo noqonay runtii shirir qiimo badnaa waanu dawladda deegaanka walaalaha Soomaalida Itoobiya iyo federaalkaba aan ku galay dalka Itoobiya qaasatan magaalada Gabiley halkaasi oo aan ku labada dawlad kala socdeen heshiiska milyan u doon doon faafayntiisa aad iyo aad ayaad u mahadsantiin sida dalkeenii labaad aad ugu soo dhaweyseen wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay ilaahay idinkana nabadqab idinku celiyo annaguna waxaan leenahay soo dhawaada wafdiga Soomaaliland maanta waxay noo sharafaynahay halkan ku soo dhaweyno wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha culus oo baryahanba hawl shaqo ugu maqnaa dalkaanu jaarkana Itoobiya runtii kulan taariikhi ah oo hawlo muhiim ah oo Itoobiya inaga xidhnaa ay ka soo suuroobeen oo sida inooga warrameen wasiirka iyo wafdiga hogaaminaya kulan aad u taariikhi ah oo fudaydin doona isu socodka labada dal iyo cilaaqaadka iyo wada shaqayntii labada qaran ka dhaxaysay ilaa tirdhabe dawladda federaalka iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inta bashir baan u yeelanay bidhow wanaagsan baa ka soo baxay waxaan filayaa wasiirka iyo wasiirka xigeenka iyo taliyaasha ciidanku inay markay siiyeen u dhaafmayaan warkaa wixii aan ku dhacnay. intaasi kadib waxa wafdigani harimo sharafeed ku maamuusay duqa degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi taasi oo loogu sameeyay aqalka martida magaalada Gabiley. Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley.